ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogo salaanta islaamka aan ku salaamayaa gudiye dibad ba Allah idin nabad yeelo nolol wanaagsan Allah idinku nooleeyo aafaadka caalamka socdaan Allah inaga badbaadiyo dhulkeenana Ilaahay noo daryeelo ay noo nabad yeelo qodobka maanta ka hadlayay ama dhowr qodob isdaba yaala qodobka koowaad waxaan ka hadlayaa maanta shirka xamar la rabo inuu ka dhaco madaxweynaha jamhuuriyadda oo ballan maartaanayana uu yeeray dawlad goboleedyada wax lagu sheego oo yeeray oo muddo soo cagajidayay ayaan rabaa inaan kelmad ka idhaahdo shirkaasi waa shir madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku dhawaaqay waana shir ummadda Soomaaliyeed ayatiinkeeda ay ka tashanayso min madaxweynaheeda ilaa dawlad goboleedyada ilaa maartaanay dawladda xamar joogta ee ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha maartaanay xamarba ummadda Soomaaliyeedna ishay ku haysaa waa shir qaran weeyaan shir beel gumaysi ma aha marka shirku hadduu shir qaran yahay maaha shir khuseeya ama ay iyagu maartaanay mas'uul ka yihiin nimanka la yiraahdo idinku beesha caalamka aad ku tilmaantaan anna beesha gumaysiga aan yiraahdo nimankaasi waxa weeyaan shaqo ku mala shirkaas ilaa inay maartaanay iyagu xalnahooda ay fadhiyaan wixii ay fariimo ka soo diraan laakiin waxa la yaab leh ninka barasaabka uga maartay yana dawladda Nairobi Jubbaland ninka barasaabka uga oo kolkuu Nairobi joogo aanan xitaa hal askari ilaalinin oo Kenya markuu doono tago markuu doono ka soo baxo soo dhoona u dhex socda inuu xamar ma iman karayo yiri oo ninka la yiraahdo James Wan ee maartaanay waxbuu jimciyada qurumaha dhaxsalaya u joogay aw ka soo kaxiyay Kismaayo ee uu keenay xalane iyo airportka inta u dhaxaysa oo ayagu galaan marka ninkaas waxa weeyaan nin Soomaaliyeed maaha waa nin Kenyaana oo weydiistay beesha gumaysiga weydiistay ama siyad jimciyada qurumaha ka dhaxaysa badho ninka James Wan la yiraahdo iyo cidii maartaan la halmaasha weydiistay magangaliyo marka nin magangaliyo xamar ka doonaya inay gaaladaas ku badbaadiso sidaabo shir uga mid noqoni oo waliba ku doodaya wixii soo uu doonay in la yeelo oo ii fulay leeyahay waxaan leeyahay Soomaalida oo u sheegaya min madaxweynaha ilaa ra'iisul wasaaraha ilaa nimanka gobolada kale haysta ee la yiraahdo Qoorqoor iyo Lafta Green iyo ninka la yiraahdo Guudlaawe iyo Umar Finish intaba waxaan leeyahay khayr Allah idin siiyo waan idin ducaynaynaa qarannimada Soomaaliyeed haduminina hana aqbalina inaad tagtaan meesha la yiraahdo xalna inaad ugu tagtaan ninka la yiraahdo maartay Axmed Madoobe iyo dan inaad halka ugu tagtaan oo qarannimadii Soomaaliyeed ku duldumisaan halkaas hayeelina taaleed ka aqbali maayeen Soomaalida dibadana waxaan leeyahay gudub meel kasta ay joogtana inay taageeraan dawladooda ku taageeraan halka dawladda looga taliyo ee asalka maartay xukunka Soomaalidu ka socdo ee looga taliyo waa in la isku yimaada ama meeshii kale madaxweynuhu magacaabo sida Baydhabo oo kale la isku tagay Dulsmareeb la isku tagay Garowe la isku tagay dad caasidaha Soomaalida hadii meel la isku tagayo iyadoo gaar ka leeyahay waa sax laakiin nin la ilaalinayo oo ilaalinayso muxuu ahaa beesha gumaysiga ilaalinayso oo magan galay cidii magan galay hal shiro laakiin madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo gobolada kale yeena isku sharaf jabin baan laahay gastoon xalay maqlayay alxamdulillah rabbil caalamiin raga maartaanay yana maartay Qoorqoor iyo Lafta Green iyo Guudlaawe iyo Umar Finish afartoodaas khayr Allah siiyay inay ku tashadeen inayna tagin xalane taasaan idinku waafaqsanahay oo rag ku tihiin sharafta Soomaaliya saa ilaaliya taasi waa taas oo waxa weeye lama aamini kara xataa nimankan beesha caalamka aad tiraadaan waa niman doonaya Soomaaliya gacantooda ka bixin weligeed
وهذا واحد وين إنا مركل اللي وعليه قاعدتي عالم كا مارتي بيشا قميص اللي وعليه شركة هذا أفسيونا أي ويران أما حنا ويران أيها نمبر 1 كا إن لو نقطة قميص مر لبعض والدور دي فرماشة أو إفتين كوسو صاري هل كا يكون بربرتون تاسي وا تاس وحن لاهي maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo maartaanay Baydhabo ama maartay Koonfur Galbeed waxaan leeyahay iyo ninka Umar Fiishe jooga maartay gudoomiyaha Xamar kullaba aqbalna arintaas mid maartaanay ilaaliya qarannimada Soomaaliyeed barka ku jirtay ilaaliya talabaad waxaan la hadlayaa on ka hadlayaa yani Puntland rafaadka haysta ummadaas waxa weeyaan runtii rafaad aad u daran baa haysta xalay odayaashii Boosaaso hadlayay iyo dadkii u hadlayeen oo in badan cabaadayay oo xitaa gabdhaha aan u dhageystay iyo mudaharaadii ay sameyn jireen Boosaaso ay ka sameeyeen dadkaasi waxay u baahan yihiin in loo turo oo loo gurmado oo Soomaaliyana loogu damqado waxa weeye ciidanka leynaya maanta Boosaaso joogay Soomaalida aad uma taqaan waa ciidan la yiraahdo ay leedahay shirkadda la Black Water ee Mareykanka ee sumcadda xun ciidan ay leedahay oo laga keenay Latin America inta badan 2000 iyo maartaanay bilowgii 2000 laga keenay America laga soo qoray oo uu leeyahay ninka la Eric Prince la leeyahay ninka Eric Prince la leeyahay oo caloosha shaqaystaasho aad u fara badan iyo kuwa qaadka cuna ee Soomaaliyeed dhulka jooga marka lagu daro oo iyagana caloosha shaqal laga qoro deenin Soomaaliya qaad cuno oo suuqa jooga marka $2,000 la siiyo aabii buu dilayaa sheekhiisi buu dilayaa mutacallimkiisi buu dilayaa cidna uma aaba yeelayo nimanka horta Boosaaso iyo Calowle iyo Gardafu iyo maartay gobolka Puntland intiisa badan loo dhiibay ee xukumaay waa ciidanka Black Water ay leedahay ee lagu magacaabo Imaaraadku walaalayaal ma lahaan jirin wariga ciidan ma lahaan jirin wixii laba ka horeeyay 2000 iyo bilowgii maartay 2000 wixii ka horeeyay ma lahaan jirin intuu ninka erag tagin Abu Dhabi una degin ciidan Imaaraad lagu sheegay ma jirin wadankooda 500,000 bay ka yihiin Imaaraadka lagu sheegay inama yaro lacagta la ciyaarayo oo ina Sheekh Said horkacayo Maxamed Sheekh Said horkacayo oo kan kale Raashidka ee isna garka xun leeyahay dumarkiisa ka baxsadeen aw maartaanay horkacayaan ayaa ciidankani dusha ku xambaartay lacagteeda ayaa ka bixiya hubkayga u soo iibiya maxaadaanay baabuur gaadiidkayga u soo iibiya raashiga iyaga ka bixiya wadanka ay qabsadaana sida Yemen oo kale u burburiyeen Liibiya looga gaaray hadda way burburinayeen ee soo qabtay Suuriya qabsatay Sunniintii Suuriya meel ku dambeeyay la leeyahay waxaasoo waxa ku dhex jira oo ku hoos jira ninka la yiraahdo Eric Prince iyo Black Water ciidankiisa caloosha shaqaystaas ayaa ku iibiyaan waa in la taageeraa jabhadda ka dilaacday ee hadda laga sameeyay inka dhalinyarada korneelkii u hadlayay ee taliya u ahaa ee ka hadlaysay Gardafu ka hadlaysay Raas Casir ka hadlaysay ee si fiican u hadlayay jabhadda waa in la taageero la xoogeeyaa dawladda federaalkana waxaan leeyahay waxa weeyaan wadankani waa wad maartay qayb wadankii ummiga ahaa hooyada u ahaa Soomaaliya ayuu ka mid yahay waxa weeyaan kolka Puntland waxa loogu bixiyay wadankii udgoonka weey ee fooxa iyo wax laga helay kolkii barigii la oran jiray maartaanay faraacinada ay ka guran jireen marka waxa wadankani uu dayacan yahay waa inay federaalku u gurmadaan maadaama boqolaal iyo kumaankum ciidan ay keeneen oo gorgor iyo maartay waran iyo haramacad iyo danab intaba la yiraahdo waa ina ciidan loo diraa wadankaas oo dadka loo gurmadaa oo ninka saaxiibka ah dan yiraahdo ee naxaynin laga gaaraa waayahay taasina waa taas waxa weeyaan waxa la qolada mucaaradka waxaan maleynayaa kolkay inaan isla soo gaarnay inaga lafteen gabagabadii waxa weeyaan dhammaantiin dacwad baad ka tirsanaan jirteen dhammaantiin kuwana waan majlis shuurihii aslax wada jirnay Sayna Cabdishakuur oo kale iyo Cabdikariim Xuseen iyo Daniga iyo kuwa kaleba iyo kuwa ahaan jiray itixaad iyo ihtisaam ahaan jiray kuwa damjid iyo balaa isku magacaabay kuwa maartay ala sheekh loo dhan jiray anu aad baan u aqaanaa khabiir baan ku xagaas waxa weeyaan walaalayaalow mabaadi'dii dacwadu lahaan jirtay ee islaamka ee dacwadda islaamka aan ku hadaaqi jirnay hadday noocan imkaad u shaqeynaysan tahay dadka hadda tuuseesaan islaamka baan ceebaynaba laakiin waxa idin sheegayaa inay meeshan maartaanay dacwaddu haddii sideedii loogu dhaqmi waayay inay inkaari ka dhacayso oo dabeedna ilaahay
أو مارت إنكار دي كل فنيو أو دبعت هالك كده سو قاردبا مش كمقطع سيك الله القرآن كتل المامي واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مرحبا مركا إنكارتي الدعوة دا إذن كل دعوة أمضى يعني كفر يستو كدا يدبعتها سأدعي كرتا إذن كو الدعوة الإسلام أشغل جري إناد كينيا ولا صفتان سأدعي كرتا إناد كو الدعوة الإسلام أشغل جري إناد مارت إماراتك أو وطعي مدامك مرينك كإيه بلاك ووتر السمعات ضحون إذن كو إماراتك أو وطع إناد تاجرتان حاجات ككينتين إناد قبيلات كو كالجبسان أمدي الصوماليات أو فرماج وانين مريحان أو مارتاني داروده هكبع حمر ما أقولنا سيد أترهدان وهي كشغين جرني مينا هين يد دعوة كشغين جرني سومالي ودان الله يسكو كيانو بل عالم كإسلام كله يسكو كيانا مينا هين وارنتاني دي الشيء يا دعوة الله فريسان ميسة إنكارتي دي بعد كل عضيه ومدى كفريسو كده يدي بعضها يجنا تاسان وجب جبنا دب دمن ولا هذا اللي مايو أو ما أنت كده بيسا مقعد السوق قاعد مايو صارت وصاحبة دي مارتك كفش المدعوة دودي نك الدعوة دي إسلام كخيامي الدعوة دي إسلام كبربرية وضن إيبيي مسلم كليهن إيبيي بدن مسلم كليهن إيبيي شعب مسلم إيبيي ما أنت ندون إنه مدحونا ونقضي سوي قبل أنت هردنا وإيبيو هو سيد دم وروح ما أنت أصلا وختم يا هل كان هيجي جوان يوم وهلا الدعوة دي بين كارت دي كل عضي وح مارت ما أنت عيب أننا نقول يدو مقع وذات الاستعمال إلا هذا وهو الدم الجديد اعتصامي وهابي بلايا لا شيء waxa idinka dacwada u soo jiiday islaamkana u soo jiiday ummadana idinka qabiilada iyo qurmoon la soo galay xamarna idinka raba inaad ku celisiin warlordadii inaad ku soo celisiin si aad dhul badan oo dambe iyo wax dambe qaniimeen dambe u heshaan laakiin ilaahay taas waxaan ka baryaa inuu idin ogolaan insha Allah taala waxaan ku soo gabagabeynayaa ninka maartay Kismaayo hadda ka yimiday James Wan keenay Kismaayo dambe yuuna ku noqon ninkaasi ummadda waa in laga badbaadshaa Kismaayo waa in dawladdu la wareegtaa waa in Kenyaanka laga saaraa waa in laga saaraa hadaadigii Tigreega oo maanta Kismaayo ku dhuumanaya oo ciidanka maartay Kenyaanku ilaaliyaan oo hadda imka Itoobiya taraha waan weeraraya ciidanka Kenyaanka iyo jihadii Axmed Madoobe ee laga keenay ilay oo ka kiciyay maartay hililka iyo maartay meesha iyo gaar ka haya waa lagu xoog roonaan waa la qaban maca kuwaas waa in la isku qabtaa gabigoodaba asmaamo in badan baan idinka sheekeeyey korku ka sheekeynayay maartay kaashaanbuurtii Tigreega iyo Puntland iyo Kenya inay maartay khatar ku jirto oo kolkii Kenya la baabiyay Tigreegi awlaha Jubbaland baa ku xigaysa waa runa way ku xigo waa in laga saaraa iyagana dawladda Soomaalidu wax fadar la leeyahay ma soconayee waa inay wadankan sidiisii lagu soo ceshaa Soomaaliya oo Soomaaliya ah